gaalkayda hadda waxa waqti dheer ay meel laakiin 2 bilood baan joogaa nin askari aan ahaa oo Kismaayo lagu soo tababaray oo military ah ninkaasaan ahaa markii kadib haddana operation waxa noo soo baa ina gaalkayna noo wado shabaab la dagaalo operation kayna saas ahaa ninaan soo dhay dad oo mid anta joogo adi yaan soo dhay mid oo taliyaa wuxuu ahaa hadda aadan Soomaal dhig jiray ninka inta jooga saas soo dhay dhiira la dhaw ninkaas markii ma ninkaas aan soo dhaweeyay saas ahayd ani ciidamada Jubbaland aan ahaa gaalkay la keenay saddex diyaar oo kala naakalkeen laakiin dadku ugu soo horeeyay ahayn laba biyaaje kala dad la keenay tiradoodii hadda aad sheego 7 isku gaarn 700 isku gaarna wixii hore wixii dambe la keenay 700 baan ahay oo Kismaayo laga keenay hadda xaaladeyda oo keedo hadda sifle oo dhaqmin waa li soo dhaweey gacan furan lagu soo dhaweey hadda xaaladeyda okay waay markii la qabanay dhinacaas ku sugnaa meesha dagaalka balliga aan budleena la jiray dadkaas la jiray insha Allah la dagaalanaan dhahay dagaal saasan ku soo galay information saasa ina information kan fulino haddana laabana la sii rabay shaamarkina ade laba dawladooda arkay galmudug iyo Puntland oo laba qol is dagaalsan taliya kan xagga naga soo kahay ninka hadda nala jir inta ado aan Soomaal ninka kalena waxa la dhahaa magaysu siin ninkan ado aan Soomaal dhahaa ninkaasna wuxuu yahay ninkaas oo meesha la nin Ethiopia ay dhalada oo meesha la dhahaa ehelada iska warqam laakiin kama warqab in aan operation kan ku jiray nin oo iska soo shaqeysana la iimalayna ilaa daba igama warqabaan way hadda maxaa galmudug maadaama gacanteeda ku jirtay maxaa la codsanaysaa hadda intii li fasaxo shib iska noqdo ama intii iyaa garabsi labadaas